safarkayga isdhisiddu wuxuu ahaa naftaydu inay noqoto mashruuc dhismo ku socdo oo maalin walba ka fiican maalinkii ka horreeyay. qofkaad hadda tahay wuxuu ku siiyay waxaad hadda haysato. waxaan aad uga dhigtay caado iyo dhaqan inaan wax akhrisku noqdo wax aanan ka gelin gorgortan. waxaan caado ka dhigtay raadinta iyo baadigoobka iyo wax ka barashada dadka aan aqoon ku tuhmayo. waxaan naftayda kula dadaalay oo aan ku adkeeyay inay joogto goobaha ay ku dhismi karto. waxaan naftayda saaxiib uga dhigay dunida fikirka. weliba xilliyadan sidaa u fakarayo sidaa naftayda ugu dadaalayo resources iyo khayraad badan ee hareerahayga ma yaalaan, laakiin waxaan haystay hami iyo doonista habiya. qalbigayga waxa ku mudnaa doonista ah inaan wax noqdo. duruufahan dhexdooda haddaan wax ku noqon karo meel kastoo kalena waxbaan ku noqon karaa. haddaan ahay qofka ugu fiican ee noqon karo qof i joojin karaa ma jiro. haddaan dariiqa wax noqoshada cagta saaro oo naftayda wax ka dhigo cadeeda sacab laguma qarin karo. waxaan markaa ku fakeray oo go'aansaday in ogaalkayga aan baahiyo. waa markaan ku tashaday inaan masraxyada raadsado maadaama ay fakarada iyo ogaalka iyo wacyiga helay bulshadana qariib ku ahayd wax khiyaaliyana u ekayd. waxa adkaatay in fursado aan helo. waxaan baryootami jiray inaan munaasabadaha bulshada dhexdeeda laga qabto ka hadlo anigoo isle ogaalkaad sheegtaa qof kale unbuu ogaal siin karaa sida adiguba qof kale ogaalkaaga u danqaray. laakiin laylama fahmin. masrax walba maya baa laygu yidhi. weliba waxaa markaa ku xidhnayd in dadka aad wax u sheegto meeshaan tegay waxaa loo dad waaweyn baa fadhiya ka fadhiisa meesha. laakiin maan joogsan isku day inaan hoos ka soo bilaabo. waxaan caado ka dhigtay maalin toddobaadka ka mid inaan booqdo dugsiyada hoose, dugsiyada sare, jaamacadaha, meelaha dhalinyaradu ku kulanto. markii dambena waxaan fursad u helay inaan qayb ka noqdo golayaasha bulshada lagaga doodo suugaanta, aqoonta, fakarka, halabuurka. ayaan markii dambe fursad u helay inaan qayb ka noqdo oo ii saamaxday inaan helo goob si joogto ah aan uga gudbin karo fariimahayga. dadka leh ogaalka iyo aqoonta iyo aragnimada nololeedna aan ugu yeedhano oon wax ka barano oon qalinka daba qabsano. waa marka safarkayga dhiirigelineed uu soo ambaqaaday. fariintu ay soo ifbaxday dadku ay ku baraarugeen waxaan ka hadlayaa bulshadeena gaar ahaan dhalinyaradu u baahan tahay. waxa ii suura gashay in idaacadaha waraysiya layga sameeyo, in tiifiyada layga arko. markii ay fariintaydu gudubtay mujtamaca si weyn u gaadhayna falcelinno waaweyn baa igaga soo noqday. la ima fahmin. dadka qaar baa igu leebelgareeyay igu shaambadeeyay in wax dhaqanka ka fog ay tahay waxaan ka hadlayay. dadka qaar baa igu shaambadeeyay in waxaan ka hadlayo waaqiciisii iyo deegaankii loogu talagalay aanan joogin. dadka qaar baa igu shaambadeeyay inaan ambad ahay. dadka qaar baa ii qaatay in aan mala awaal aan jirin ii daaran. aad baa bulshadu ay ii shirdiiday oo uga dhaga adeegtay fariintayda. qurub kasta oo bulshada ka mida waan isa seegnay. qof kastoo loo qaateena fariintaydu may gelin. waxay noqotay markii dambe in laygu maadsado. waa kii eegtay kii maantana waxaasu la yimid. waxaa noqday wax laysku qabsado oo dadku isku maandhaafo oo laga hadlo. miis walba oo laygu hadal qaado dadku waa igu kala qaybsamayeen. waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo rabay inuu fariin isaga anfacday dadkiisana la wadaago oo ogaalka isaga uu isleeyahay waxbuu ku tarayaa oo waad ku meel maraysaa dadkaaga la wadaag ay ka ahayd baan ahaa. oo marka walaalkii, saaxiibkii, indhihii bulshada, shacabkii, dhalinyaradii aad ku facaydeen dhammaantood qofka kuugu naxariis badan uu yahay qofka kule waxaan iska daa dadkii baad isku nacdeen. hadalka dadku ma fiicne iska daa. xitaa masaajidii baa laga hadal qaaday iska daa. it was so difficult. marka dambe ay noqotay cid walba isku dayda inay ku silence garayso. magacii lagu bixiyo, furta lagugu fiiqo, aad noqoto tuka balcad. waan qaadi kari waayay. waan korayay. laakiin waan sii waday ma joojin. qalbigayga waxaan ka arkayay inay iman doonto maalin fariintani ay noqoto fariin loo kala dheereeyo oo la dalbado oo laysku diiwaangeliyo. muddo 12 sannadood hadda laga joogo ayaan toddobaad walba, bil walba,
sanad walba oo ka mida 12 sanadood si joogto ah naftayda uga shaqaynayay naftayda u maalgelinayay xirfadahayga u soofeynayay wax isku barayay dhinacyada kala duwan ee nolosheeda ku dadaalayay ka horumaro qalinka daba haystay dadka ogaal iyo aqoon iyo kasma aan ka fikirayo si joogto ah isku maalgelinay si joogto ah wax u akhriyay xirfadaha lagama maarmaanka ah ee dunida maanta ka shaqeeya isku qalabaynay ogaalkayga iyo wacigayga iyo fahamkayga iyo adduun araggayga dhisay 12 sanadood kadib fariintaydu waxay noqotay fariin gudubtay fariin loo kala tartamo markaad wax bilaabaysaba laba qof baa marka horeba inaad la dagaalantahay tahay mid waa mid adiga kugu dhex jira oo dhaliil badan oo niiclo ah oo maaragtay aad u yuus badan oo arka sabab kastoo inay wax kugu suuragelay fariin la wada jecel yahay fariin tixraac laga dhigto fariin la kuwood garaysto oo dadku ay qoraal ka qaataan fariin la jecel yahay oo kombiyuutarada iyo moobilada lagu kaydsado fariin dugsiyada jaamacadaha TV-yada iyo masraxyada caalamka laga soo raadsado fariin si joogto ah loo dalbado fariin lacag lagu bixiyo si loo maqlo waxay noqotay fariin marka la xasuusto aniga la xasuusto marka aniga la arkana fariintii la xasuusto waxay noqotay fariin abuurtay kacdoon qof walba oo dhalinyaro is leeyahay waxbaad noqon kartaa waxaad iska dhigtaad wax ku heli kartaa waxay noqotay fariin carisa dareenka iyo doonista jiil dhan oo wadankeena ku koraya 12 sanadood mujtamacayga hor taagnaa wax uun ma sheegin waxaan sheegaa naftayda ku dabaqay naftayda si joogto ah u horumarinayay 12 sanadood kadibna masrax walba maanta waa la iga yeeray waxaan u safray intaasoo wada anigoo sharfan oo fariintayda ku qiimaysan kalsoonida ku dhaca dhiiranaanta wax noqoshada isbedelka qofeed ayaan astaan u noqday jaamacadaha Yurub ku yaalaan wax ka dhiga masraxyada adduunkan ruuxa isbedelka qayra xadkaaya naftayda ku sameeyay hal shay baa ii suurageliyay waxaan dhisay naftayda waxaan qalabeeyay shakhsiyadayda waxaan si qayra xad u dhisay ahaanshahayga taasaana sababtay inaan ka dhaqaaqo meelahan idin soo sheegay oo aan gaadho meelahan maanta joogo diiba aad ku fikiraysa inaad wax noqotid talaabada ugu muhiimsan ee u qaadaysa waa inaad naftaada dhisto marxalad kasta oo noloshaadu waxay u baahan tahay qof ka duwan qofkaad shalay ahayd dunida aad arkaysa hareerahaaguna waa humaaga ka soo noqda dunida gudahaaga albaabka laga galo wax noqoshaduna waa inaad dib u soo dhistid gudahaaga waxa hareerahaaga yaala kuma bedelaan laakiin gudahaaga waxa ka dhacaya markay isbedelaan ayay isbedelaan waxa hareerahaaga yaala oo dhan aan ku faraxsanahay inaan idin la wadaago course aan ku soo ururiyay wax kasta oo aan ka aqaano horumarinta qofnimadaada waxaan ku soo ururiyay waayo aragnimo aan ka helay tijaabooyin aan sameeyay waxaan ku soo ururiyay wax kasta oo ka bartay qof kasta oo gaadhay oo noqday wixii uu rabay waxaan ku soo ururiyay casharro aan ka bartay dadka aan ku daydo ee haysta natiijooyinkii ay ku dadaalayeen noloshooda waxaan ku soo ururiyay aragtiyo aqoon iyo farsamooyin iyo tijaabooyin si sahlan kuugu saamaxaya inaad isbedel qayra xada naftaada ku samayso waxa kuugu jira muuqaalo layliyo reflections journaling tijaabooyin isqiimayn iyo qorsheynta mustaqbalkaaga shalay waxaad naftaada ku lahayd berri baan bedelaya waa maanta maalintii isbedel dhaba aad ku talaabsan lahayd si aad kooraskan u qaadato oo aad isku diiwaangeliso gal website-kayga www.maxamedcumar.com isdiiwaangeli waa inoo iyo halkaa ina mari